inaanu boosaaso iyo garowe ku qaadi doono oo aana dhici doonin in lagu meeraysto dalka Soomaaliland gudihiisa laakiin ay noqon doonto dharbaaxo weyn oo aan ku gaarsiino digna ku daato boosaaso iyo garowe balanteedu ay tahay wassalaamu calaykum laascaanood waxay muddo dheer ahayd goob ay ka amar ku taagleynayeen maleeshiya u awood sheegatay bulshada Soomaaliland dariska ka ah ee gobolkaasi waxayna ahayd magaalo uu ka jiray jahawareer xooga oo lagu marin habaabinayo isir sheegasho lagu qadayay inta maan gaabka ah iyadoo aanay marnaba aqbalin waxgaradka iyo aqoonyahanka tirada badan ee u dhashay gobolkaasi waxayna markasta taageero hiiliyo hooba ugu baaqayeen dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo in ciidanka qaranku soo gaadho hawlgallada ciidanka qaranku ay kaga jawaabayaan gardarooyinkii Majeerteeniya waa kuwa uu maxsuulkoodu ku soo ururayo horumarinta iyo nidaamka dawladnimo gaadhsiinta ee ka tisqaaday qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta xaaladda magaalada Laascaanood waxay kor u sii qaaday odoroskii iyo hankii dadka ku nool magaaladaas gaar ahaan guud ahaanna gobolka Sool waxaana taas ka dhashay sida hore iyo dambeetaba ay u soo dhaweeyeen shacbiga dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ay horkacayaan ciidanka qaranku xaaladda magaalada ayaa maanta deganayd kadib markii ay soo gabagaboobeen ka jawaabidda guusha weyn laga gaadhay ee gardarrada maleeshiyada Majeerteeniya shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa looga baahan yahay inay taageero dhan walba siiyaan ciidanka qaranka siiba dadka maalqabeenka ah iyo ganacsatada kuna dhawaaqaan xilligan xaaladani jirto iyadoo dadweynahana aanu xasuusinayno inay yihiin ciidanka kaydka ee mar walba u taagan difaaca qarannimada dalka waxaana laga maarmaana in lagala qayb galo fantasiyaha iyo damaashaadka ay ku jiraan bulshaweynta reer Sool ee waaga cusub galay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa kuwa ku sifoobay deganaan dulqaad damac yari isla markaasina ka jiba keenaya cid kasta oo ku soo gardaroota halkani waa duleedka magaalada Laascaanood xarunta gobolkaasi Sool maanta waxay u ahayd magaalada Laascaanood maalin ka duwan maalintii shalayto sababtuna waxay tahay wax waliba sida caadiga ahayd ayay ku soo noqdeen waxaase aan xasuusinayaa in marka hore balaan eegno sidee bay wax u dhaceen shalay waxay ahayd arooryo hore 5:45 daqiiqo ee xilliga waaga barigiisii markii ay weerar ku soo qaadeen maleeshiyada Majeerteeniya ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee jiida hore ku sugnaa halkani waa fariisimada guutada 18aad ee jiida hore ee ciidanka qaranka waana goobtii maalintii shalay uu ka bilaabmay weerarkii maleeshiyada Majeerteeniya iyagoo laba aag ka soo weeraray saldhiggii guutadan 18aad maleeshiyada Majeerteeniya waxay soo dhaafeen ciidamada qaranka ee aagga hore ku sugnaa iyagoo beegsaday oo kaliya guutadan laba dhinacna ka soo galay taliyaha guutada 18aad ee ciidanka qaranka Axmed Ismaaciil ayaa telefishinka qaranka uga warramay maanta sida ay wax u dhaceen goobtaan ku sugay in waxa degeeyay guutada 18aad markii uu bilaabay dagaalka aniga si amarkan soo baxay halkan aad ku haysid geedkan ciidan ilaa ka kooban 20 baabuur oo wata booyadiisii 3 suuq waxay ahaayeen ciidan aad u garan markii aanu arnay jeedsanado ruux lagu soo hayo garan ciidan adag ahayd oo macadaba siin garan ayaa ana horeeyay oo wato garan tahay baabuur yar halkaas ka bilaabay markiiba dawladsiibo ku sii markiiba 3 baabuur baan ka banjarnay maxaabiis waan ku qabanay waxa laga helay 2 baabuur oo u saaran yahay qori ishiike ahi qorigii baabuurkii taliyaha ilaa waxa soo goray muqmadoodii iyo kaalkii waxa kale ee tagay ee xagga u cararay qaar waxay daadeen saliida qaar bakar bay ahaayeen meydkoodii iyo dhaawacoodii halkaas aan ka ururinay shalay qoyo badanna waan ka furanay haddii aanu nahay labada guutada halkana ciidan baa ka soo baxay kaana waxaan u fiday gurmad kaana waa la kacay sabidii u xumayd ayay galeen sanadkooda ilaahay baana mahadle alla nagu guuleeyey weli meydkoodii wuxuu
waxay ku xasiyeen xataa waxay gelayeen meelaha cariga ah ayuu ku jiray midkoodi oo ka baanday dhaawac dambana soo qaban dhaawac aad buu badnaa waan soo gudbinay madaxa iyo maxaabiis dagaalku wuxuu socday ilaa wuxuu dagaalku bilaabay goor lixdii iyo barkii uu bilaabay dagaalku sida ay noo xaqiijiyeen qola jeeljeelayaal garaasa hurdankoodii waxoodii ku kaceen sida ku qaxeen waxay qabtay intii aan sii socday garaasa ay ku socotay xabadii tobnaad markiiba waan ka gaani nimanka weerarkaa lahaa waxaan ka hayaa buug imika dhugmati aan ka hayaa waxay ka yimaadeen garow iyo boose wixii ka kasta waxayna ahayn ciidanka marinada ahayn wax ay majeeteenya wax uga hasanoo dambana halkaasaan u cadisay inay jirin kaasi waxa uu ahaa taliyaha guutada 18aad ee ciidanka qaranka oo ah goobta uu shalay ka bilaabmay weerarkii ay soo qaadeen maleeshiyada majeerteeniya ee lagu jabiyey goobta ay warbixinta ku siinayeen wariyaasha telefishinka qaranka oo xubno ka midina ay hore u sii joogeen isla maantana ay gaadheen warfidyeeno kale oo ka tirsan TV-ga qaranka uu horkacayo agaasimaha guud ee telefishinka qaranka mudane maxamed muuse diiriye waxa isaguna ku sugnaa taliyaha aagga bari ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed aadan dhancade waxaanu ku bogaadiyey ciidanka gaar ahaan guutada uu la hadlayay markan ee 18aad guusha ballaaran ay gaadheen hore guuto ka mid ah guutooyinka ciidanka jiida hore guutada gurmadka oo ugu gaadiid badan uguna gaadiid fiican ciidanka qaranka ee raaca hore ku jira shalaytana qayb libaax ka qaatay dagaalkii halkan ay ka dhacay ee duulaanka ay soo qaadeen nimanka la yidhaahdo majeerteen oo ay si baan isu soo abaabuleen xisaabta qura ka qaldantay waxay ahayd ciidamadii ilaa halkan ku sugnaa ilaa raaca xargiga ciidan walba ciidan bay u soo qaybiyeen habeennimadii bay ku soo guureeyeen salaada intaan himsihii ayay dagaal ku bilaabeen xisaabta qura ka qaldanayd waxay ahayd ciidankan dambe ee kaydka ah ee adhi caddeeyo duleedkiisa ka soo gurmaday oo ah guutadan iminka aynu la joogno oo dhirbaaxa kulul ciidankii laxaadka lahaa ee ku habsaday ciidankii 18aad ee halkan deganaa 114aad iyo guutada 720aad ku habsaday ciidanka ka fujiyey ee dabka culus watay ee si wacan ula dagaal galay ee khasaaraha gaadhsiiyey ee kala hadhay gaadiidkii iyo raggiiba kala hadhay waa ciidankan iminka aynu la joogno waa ciidamadaanu ku dhaadana ayay ka mid yihiin waxaan wax kala odhan maayo hawli maantay bilow tahay adkaysta waxaa u tihiin ciidamadii sida awalba ugu haydeen waxay joogaan 720 kilomitir bay hore u dhaafeen magaaladii laascaanood gobolkan oo dibdhac badani ku dhacay oo gobolladii kale Soomaaliland ka hadhay weeye siyaasadda dalka qaranka haweenaha jamhuuriyadda Soomaaliland daahir riyaalo kaahin taliyaha ciidanka qaranka nuux ismaaciil taani wasaaradda gaashaandhigga siyaasaddii ay noo sheexeen ee fiicnayd halkan waxaa fuliyey ciidankii qaranka jiidii hore aad iyo aad waxaan u hambalyaynayaa gaar ahaan guutada nimanka maanta aynu la joogno oo waajibkeedii si laxaad leh oo raganimo leh u gudatay waa mahadsantihiin qoladiina TV ka socota isha ciidanka qaranku waxay wariyaasha u soo bandhigeen dokumentiyadii ay ka qabteen taliyaha ciidanka maleeshiyada weerarka soo qaaday kuwaasi oo dhammaantoodba ku salaysnaa shirqollada ay Soomaaliland u maleegayaan dawlad ku sheegta Imbigati iyo maamulka majeerteeniya baxayna guutada tobnaad xarunteeda mafiristeeda oo ahayd goobtii ugu horeysay ee ay shalay dagaal ka bilaabay waxaan u baxaynaa